dal jacaylku waa qani wadeeq ilaahay qofba si uga dhigaye Soomaaliyey dadkaygay waxaan idin su'aalaa jacaylkan dalkaygiyo dadkaygan u qabo yaa ila dare maayo dalka ila dhisayo deeqto walaalkay deeqto walaashay haddaad ila dareenteen oo diyaar u noqoteen dalka waan dhisaynaaye dowlad kalena ayaan sugin waxaan ereyadaas ka mid ahay dalka waa dhisaynaaye dowlad kale yaa sugin dabcan waa hees ka turjumayso wadiinnimada iyo waliba dhalinta lagu baraarujinayo in wadankooda wax u qabtaan isla markaana aysan sugin wadamo kale ama qofka qaar in wadanka wax u qabto oo iyagu ay xilqaamaan gabayga waxaa la yiraahdaa qoondada haweenka magaciisa oo idil dhaaba marka wuxuu ku bilaabanaa isagana qarniyadii horeetiyo ilaa maanta qaxa taagan rabbi baa qoray waxaan isleeyahay ragga qaadinka ahaaye qolo isku raaceen qoryaha way isku qaateen qaxootiyayna geeyeen adduun ugu qatalayaan sawirey ka qaadeen haddana duni ku qeelsheene ubadkii oo qaan gaarin baa idinka quusteen jaahilnimada idin qaada baan laba qamuuyooday haddaad qalad gasheen qaadateen qaybta shacabkaani qabri baa la gelayaa qiyaama la tagayay camalka la qaadaa qasaarana joogtiine qaadirka ogaayo raggan qeyrkii baa diiday u qorsheeyay qoondada hablaha baa qaboojinaya gabdhahan qurxoon oo Quraysh aad maleynayso diintay qurquriyeen haddana buugta qaateen qalinkay ku hagayaan bulshada bay qancinayaan qoshuuc iyo wadaninimo ayay howl ku qabanaan u qorsheeyay qoondada hablaha baa qaboojinaya qarannimada duugteen ayay soo qufaayaan cadaaladday qubayaan qabiilkayna diidaan qalfoof ma dumarku ragay qiimo dheeriyiin qaali qaaba sheego xadiistaana lagu qoray u qorsheeyay qoondada hablaha baa qaboojinaya waa gawayga qayb kamid ah waa qaybtii ragga iyagu kaga hadlaysay dhanka dumarkana maxaa ka tiri markaa dhanka dumarkana asagana sidoo kale waxaa ka soo qaatay hadda waxay ahayd waa hooyooyin qaali ah qoyskay u mudan yihiin u qorsheeyay qoondada hablaha baa qaboojinaya waa asagana qayb kale oo dheer uu leeyahay dabcan u qorsheeyay qoondada hablaha baa qaboojinaya waa ka shukri aad u maasanta dabcan waxaa ka turjuntay dareenkii iyagu hablihii ama dumarka inta badan u doodaya 30% in la helo kursiga baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya marka laga soo laabto arintaasi imisa ay ku qaadataa inay gabay culuso ama wax un aad bulshada aad u soo gudbiso dabcan orto waxyaabaha waxay ku xiran yihiin dareenka ay ku yimaadaan haddii maanta oo kaleeto aad eedo meel joogto kaleeto haddii dhibaato ay dhacdo kaleeto inaa wax isla markiiba dareenkaada isbedelo wax sameeyso way fududahay laakiin se wax aan dareenku u maanin inaad sameeyso aad iska alifto waa waqti qaadanaysa kii dareenka ku imaado isagu daqiiqada kugu qaadataa ama saacado badan ayaa qaadataa inaad tirisid wax hadda maanta oo kaleeto dareenku u maaday hadii waa la sameynaa la ugu badnaan 2 saac ka badan ugu qaadamayso inaad sameysid waa taa shukriye waxaa jiro hablo iyagu inta badan hal abuur leh jecelna inay bulshadu wax u soo gudbiyaan laakiin dhanka iyo wax gudbintii aad looga haysto iyagu maxaad oran lahayd in hal abuurkooda bulshadu soo bandhigaan dabcan gabdhaha Soomaaliyeed orto ma sha Allah boqolkiiba oo mahad celinaya kaalinta ay ka qaataan horumarka iyo dhan walba bulshada kamid ah sidoo kale to gabdhaha waxaan ku dhiirigelinayaa inay ka baqin inay wax soo bandhigaan waxa ay soo bandhigaan waxa laga yaabaa in horumarka dalka oo dhan ay ku xiran tahay sababtoo ah maanta Ilaahay ba ku siiyay hadii aad waxaada baraarujin iyo waxyaabo badan oo aad heysay aad adiga aad qarsato adigan dhibaato ku tahay dadka kale tan waxba u maana faa'iideyn marka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinayaa inay hibadooda hal abuurnimo ay soo bandhigaan iyo wax walba oo horumar ah ay haayaan laakiin dibka ugu badan ee gabdhaha haysto waxa weeyaan marka wax soo bandhigmaa waxa leeyahay adiga gabar tahay maxaa wax soo bandhigaysaa dabcan wixina waa la laabanaya orto fikirkaas waa fikir aad u qaldan Soomaalidana inta badan ay xambaarsan tahay rag iyo dumarba in la yiraahdo gabar tahay gabarta inay bulshada la fadhabarteeda tahay waa la sheegay laakiin se inay kaalinteeda kale oo muuqaalnimo ay qaadato ay dhaqdhaqaaq ay sameeyso waa loo diidan yahay dabcan waxaan kula talinayaa dhamaan ummadda Soomaaliyeed iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed gabdhaha in laga daayo in cadaadiska iyo waxaan ma sameeyay kartid iyo waxaan ma yeeli kartid dabcan waa hooyooyin Soomaaliyeed rafaadka iyo dhibaatada iyo waxyaabaha ay maanta u soo dul qaateen markii
ka burburka oo dalkeena ka dhacay waxyaabaha ugu badan oo dhaxda xirtay oo heerka maanta la taagan yahay waa haweenka Soomaaliyeed marka ma ahan in iyakana markii wax yar oo nabad la helo la yiraahdo waxa ma sameey kartiin waxa ma qaban kartaan intii diinta islaamka ay u gashahay inay haweenka Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan horumarka iyo dib u dhista dalka oo aysan ka gabanay hor u socdaan hablaha iyagu wax curiyo waxa jiro waxyaabo ay si aan ay ku yihiin tusaale ahaan Bramborka oo kale adii dhankaas wali wax ma ku curiso si fiican Brambor waxa jiray liiraha hoggaan wanaag oo kaleeto iyo mid kaleeto asna uga hadlaya burburkii dalka Soomaaliya iyo inkastoo hadda aan wax badan ka xasuusan laakiin waxa kamid ahay kan sheegan burburka dalka uga hadlaya waxa ugu jirta qayb aan haweenka oo kaleeto aan ku sheegayo inta badan haweenka diirada saartay si fiican qayb ma inta badan ma ahan inta badan aniga waxyaabaha aan sameeyo waxa u badan yihiin dhanka dhiirigelinta waxbarashada oo kaleeto oo bulshada qusay si fiican kan waxay ahayd qayb yara jirtay oo dumar ku soo qaatay oo markii aan burburka dalka oo kaleeto aan ka hadlay waxa jeceshay in si caadi ku aqriyo sidii haweenka lagu yaqaan inaad igu luuqayso daawadayaashan ay si aad ugu dheedaan waa mahadsan tahay waxay ahayd habar qabaya hal markee hey hoggaan oo ciye habar qabaya hal markee hey hoggaan oo ciye kuwii hooska loo ordiyo harkan oo ahaa kuwii hooska loo ordiyo harkan oo ahaa kuwii hoyga wanaagsan iyo hooyan oo ahaa kuwii hoyga wanaagsan iyo hooyan oo ahaa dabcan meelo badan oo waxa jirta sacmal ah haween ku soo qaatay haweenka diirada ku saareyso shugriyay anigoo kaaga mahadcelinay qaabka quruxda badan ee aad fursada inoo siisay inaan wareysigan kula yeelno isla markaana aad bulshada usoo bandhigto hal abuurkaada iyo weliba waxyaabaha ka tiraaday bulshada qaybeeda kala gedisan su'aal yar oo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhanka iyo kaftanka maxaa dhinaca jaceylka kugu diiday adiga shugri ahaan kaafi aad u mahadsan tahay orto qofka inta badan waxyaabaha ay shaqadiisu tahay oo la xiriira wax ka sameyn kara ama si fiican u yaqaan aniga inta badan waqtigeyga waxyaabaha aan ku bixiyo waxa kamid ah waxbarashada kaleeto sidaas darteed aan sii dheereeyay dhanka jaceylka uga gaabay maadaama aan qof waxbarashada wali ku dhex jiro ama santa shugriye ugu dambeyn barnaamijka gabagabadiisa isla soo gaarnay gudahan hablaha Soomaaliyeed iyagu wax qabanaya ama la abuur kale maxaad ugu baaqi lahayd waa mahadsan tahay lamaan umada Soomaaliyeed orto mar labaad mar saddexaad waa salaamaya waan u mahad celinaya haweenka Soomaaliyeed si gaar ah waxaan leeyahay waa ku ammaanantihiin inta aad ka qayb qaadateen horumarka bulshada iyo wacyigelinta iyo dhan walba ay tahay waan la ogyahay in laf dhabarka bulshada tihiin haddana dadaalkiina si laba jibaara gabdhaha dabcan waxbarashada kaleeto waxaan sheegay inay ka gaagaabiyaan gabdhaha waxaan kula talinayaa inay waxbarashada iyakana ay ku dadaalaan dabcan si ay bulshadooda iyo dalkooda horumar ay u gaarsiiyaan dabcan rag wax bartay maanta way buuxaan laakiin waxa la sheegay in gabdhaha yihiin dhanka dumarka waxa laga yaabaa hadii gabdhaha wax bartay ay bataan in dalku si dhaqso ku horumar in rag wax bartay waa buuxaan waxna waa bedelayeen si fiican marka gabdhaha san kula talinayaa in waxbarashada iyo diiradda saaraan dhan walba iyagoo ku xiran yahay horumarka dalka